شرقها دوغان عيد عدوى هدن عطها قبيش وليلتي وروينكم معنا عطوا مير ليسي علىك واهدو شرقها دوغان عيد عدوى هدن عطها قبيش وليلتي وروينكم معنا عطوا مير ليسي waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo bal waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagalii wax ugu qabo wana lama huraane hagalii wax ugu qabo bal waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan diiradda ku saari doono sooyaalka taariikheed ee degmada ceegaag. degmada ceegaag waa degmo ka tirsan gobolka Saraar. ceegaag waxay dhacdaa bartamaha 3 magaalo oo kala ah Laascaanood, Buuhoodle iyo Caynaba. degmada ceegaag waxaa la aasaasay 6dii bishii 6aad 2006. ceegaag waa degmo aad u qurux badan xilli kasta oo barwaaqo ah oo ay dadka ku dhaqan degmadaasi ay u dalxiis tagaan. sidoo kale deegaankana xilliyada barwaaqada waxaa indhahaaga soo jiidanaya keymo aad u qurxoon iyo balliyada oo ay ka baxaan dhir aad u qurxooni. degmada ceegaag waxay dhacdaa juqraafi ahaan bartamaha dhulka loo yaqaano hawdka iyo nugaasha. degmada ceegaag waxay muddooyinkii u dambeeyay ku tallaabsatay horumar aad u ballaaran sida waxbarashada, caafimaadka iyo beeraha. ceegaag waxay leedahay dhinacyada waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare. sidoo kale waxay leedahay degmadu macahado lagu barto culuumta diinta iyo shareecada islaamka. waxyaabaha ay ku horumartay degmadu waxaa ka mid ah beerahaas uu nooga warbixinayo Cabdixakiin Cali oo ah mulkiilaha beertan. waxaa ku beeran dhir ka kooban saytuun 135 geed ka kooban. waxaa ku beeran liin 165 geed ah. waxaa ku beeran geedka la yiraahdo babayga oo 154 geed ka kooban. waxaa ku beeran geedka la yiraahdo haruurka oo idin baad aragtaa sida uu baxay oo si fiican u baxay. waxaa ku beeran digir ka kooban 3 qaybood oo kala nooc ah. qayb waa qaybta digirta maxalliga ah. degmada ceegaag waxay leedahay kooxo isboorti oo ka ciyaara degmadaasi. haddaba waxaa isweydiin layaa horumariyay degmada ceegaag. waxaa horumariyay dadka deegaankaas. waxaa ka mid ah ururka ceegaag community action oo ururka jaaliyadda reer ceegaag sida uu nooga warbixinayo wakiilka ceegaag uga howlgada Aadan Saleemaan Jaamac Aadan Caleed. ku hadlaya afka ururka dhalinyarada CCA inaan shirka ka soo jeediyo ururka anigu aan matalayo wax qabadkiisa iyo waxa weeyaan waxyaabaha loo aasaasay inaan wax yar ka taabto. ururka waxa la aasaasay taariikh ka yar 1 sano ayuu jiraa. wax qabad ballaaran buu deegaanka ka qabtay sida caafimaadka oo waxa weeyaan wax badan ka qabtay, waxbarashada kale horumarinta deegaanka. ururku muddada yar uu shaqeynaya wax badan ayuu deegaanka ku horumariyay. haddii aan halkan qodobeer ku soo qaado, ururka waxaa loo aasaasay tayeynta, dhiraynta iyo horumarinta degmada ceegaag. horumarinta degmada ceegaag in la horumariyo deegaanka. dhirtana deegaanku dhir buu baahay, waa deegaan cusub oo meelo loogu talagalay dhirta buu leeyahay oo wadooyin fiican oo loogu talagalay dhirta. taasna in ururku wax ka qabto. teeda kale adkeynta midda kale waxa weeyaan taakulaynta dadka danyarta ah. ururka loo aasasay taakulaynta dadka danyarta ah ee deegaankeena aad ugu fara badan in la taakuleeyo oo la caawiyo. teeda kale intaas waa qodobo aan ugu talagalnay aan kaga hadlayay waxyaabii loo aasaasay ururka dhalinyarada. degmada ceegaag waxa uu dhaqaaluhu ka soo galaa dhinacyada xoolaha nool iyo dalagyada ka soo go'a beeraha. degmada ceegaag hadda way 12 jirsatay
laga soo bilaabo sanadii 2006 ilaa 2017 daawadayaal barnaamijkii aan kaga hadlaynay sooyaalka taariikheed ee degmada Ceegaag oo anaga inta waxa barnaamijkan la soo codsiinaya anigoo ah wariye Liibaan Qaran inta aan ku kulmi doono barnaamij la mid ah waxaan idinkaga tagnaa sida iyo amaana Allah